Harar waxay ku taallaa dalka xoogga isku hoosgeeyay ee Ethiopia iyada oo ku taalla bariga dalka waxaana ay qiyaastii 500 kiiloomitir u jirtaa Addis Ababa waxay ku fadhidaa dhul dhererkiisu gaaraya 1885 mitir oo u dhiganta 6184 feet tan iyo qarniyo. Harar waxay ahayd xarun diimeed iyo madal ganacsi oo muhiim ah iyadoo isku xidhaysay Ethiopia inteeda kale geeska Afrika, Carabta iyo Aasiya iyadoo loo sii maraya xeebaha Soomaalida. Harar waxaa sanadkii 2006 laga dhigay goob dhaxal adduun ah oo ay aqoonsan tahay hay'adda UNESCO waxaana lagu sharfay taariikhdeeda iyo dhaqankeeda suuban ee caanka ku tahay waa taariikhdeeda Islaamiga ah. Magaalada waxaa ku yaala in ka badan 200 oo masaajid, saddex ka midana waxaa la aasaasay qarnigii 10aad iyo 102 qudbi sida ku qoran kutubta taariikhda ah gaar ahaan kitaabka Fath Madinati Harar. waxaa magaalada yimid sheekh la oran jiray Abaadir Umar Ar-Rida qiyaastii sanadkii 1216 oo u dhiganta 612 hijriya. waxaa la socday 405 qof oo kale waxayna dhamidood ka yimaadeen jasiiradda Carabta waxaana ragga ka mid ahaa Awbar Khadle iyo Ismaaciil Jabarti. dadkii deegaanka sida Argoobaha, Gaturiga iyo Harlaha waxay aqbaleen hogaamintii sheekha oo noqday xaakimka magaalada Harar. sheekhu waxa uu ku laabtay magaalada Makka ee dalka Sacuudi Carabiya sanadkii 1234. magaaladana waxaa sii xukumay rag kale. inta badan culimada Carabta ee Harar saldhigatay waxay ku dhinteen dagaal ay la galeen Nasaarada Xabashida ah. sanadkii 1520 Harar waxa ay noqotay caasimadda saldanadii Cadal oo ahay saldanad Islaami ah oo ka dhisan magaalada Saylac iskuna fadhisay guud ahaan bartamaha geeska Afrika. waxaana arrinkaasi dhacday guushii uu suldaan lagu magacaabi jiray Abubakar ibn Muhammad ka gaaray kooxihii Kiristaanka ahaa ee uu hogaaminayay ninkii Xabashiga ahaa ee lagu magacaabi jiray Abu Nadashe. markaas kadibna waxaa talada qabsaday Imaam Ahmed Gurey. Imaam Ahmed waa macruuf aad wada taqaanaan ayaa magaalada Harar ka dhigay xarun uu ka soo abaabulo dagaalada uu ku qaado Kiristaanka Xabashida ee maanta magaca Ethiopia ku hoos gabada. qarnigii 19aad shacabka Harar waxay ka cawdeen xukunkii amiir lagu magacaabi jiray Maxamed ibn Ali taasoo keentay in masaaridu magaalada qabsadaan sanadkii 1875. markaasi waxaa lagu dilay masaajidka amiirka isagoo salaad tujinaya. masaaridu waxay dhiseen dhismooyin cusub sida isbitaallo, guryo dawladeed iyo masaajido hor leh. sanadkii 1887 boqorkii cadowga ahaa ee lagu magacaabi jiray Minilig Labo ee ka soo hayaamay Aksum wuxuu si rasmi ah u qabsaday Harar kadib dagaalkii Jalanqo isagoo meesha ka saaray imaaraadkii Soomaalida ahaa. tani waxay keentay in amxaaradu si xoog ah u degaan magaalada taasoo horseeday in dadkii Hararadii ahaa ee asalka ahaa laga raro hantidoodii la dhaco. teeriya maalinka ilaa sanadan oo ku jirno oo 2025 Harar waxay gashay gacanta Kiristaanka iyo xukunka amxaarada waxayna ku hoosjitaa talada qalloocan ee dalka Ethiopia. markii Talyaanigu qabsaday Ethiopia sanadkii 1936 dadka Harariyiintu waxay soo dhaweyn u fidiyeen Talyaaniga maadaama ay ka daalan cadaadiskii iyo gumaysigii xukunka Xabashida. Talyaanigu wuxuu dadka Hararida dib u siiyay dhulkoodii, wuxuu u dhisay masaajidyo cusub, waxaanu ka caawiyay inay xoogga saaraan barashada afka Carabiga oo ah luqadda muslimiinta, wuxuuna shaqaaleysay dad badan oo muslimiin ah. dhicidii xukunka Xabashida ee dhargiga kadib qoomiyadda Adarida oo ay u tahay Harar xarun Malla Zanaawi waxa ay ka heleen xoogaa nifaasa iyagoo loo ogolaaday inay ku hadlaan Quraan oo horumariyaan luqadooda ilaaliyaan goobaha taariikhiga ee Harar ku yaala kuwaas oo ah xaruman muslimiintu leeyihiin. laakiin weli reer Harar waxay ku jiraan gacanta gumaysiga gaalada ee Ethiopia kuwaas oo qabsaday sanadkii 1887. waxaan ahay Muxuudiin Cabdi oo kala socotaan juqraafiya. haddaad nagu cusub tahay fadlan bogga subscribe saar, haddaad nala socotayna like iyo share bay isugu dar si uu gaaro saaxiibo badan. intaynu dib ka kulmayno nabadiino. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.